waxaa aad iyo aad u baahin loo qabaa oo masjidku u qabaa inuu helo ceel oo maaragtay u qaasa oo maaragtay alxamdulillah biyo oo ka helo ilaahay waxa uu dhahay fasabiqul khayraadka u tartama wax khayra waaye sadaqada jaariyadana waxa waaye ceelku koobowba ka yahaba insha Allah ta'ala ceelkana dhulkiisa annaga ayaa dhiibayno dhulkaanba anaga waqafnay iyo waxaan dhan ilaahay idankiisa ceelkii dhulkiisana dhul la gedayo ma ahan waxaan ogahay dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta rag iyo haweenba inay aad iyo aad u jecel yihiin khayrka shan riig mooyaane wax kale oo biyo ka soo saari kara ma leh riigaas iyo qarashkiisa iyo maaragtay ceelka waxa uu baahan yahay dadku waa yaqaaniine waxa soo dhan waxay u baahan yihiin markaas qarash badan waa la qiimeeyay arintaas waxa soo dhan waxa ku filan waxay noqdeen $70,000 ay noqdeen waxaan ku dareynaa hadalka aan raacsiinaya dadku waxa weeye lacag la soo diraa oo hadda aaladana wax lagu sameeyaa telefoonka numberkayga hadda maaragtay anigu kaliya aan leeyahay inkastoo badana Soomaalidu ay taqaano haddana waxa waaye telefoonkan laga isticmaalo halkan 358 waaye 358 kaasa maaragtay khadna waa leeyahay oo maaragtay WhatsApp-ka kulli meel walba laga soo xiriiri karaa dawadayaal halka sida dadka in kala soo hadlayo waa masjidka oo gacanta oo ku hayo caalimka weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Maxamuud Cabdulla Cariif ka oo lagu magacaabo masjidka Daarul Quraan oo ku yaal deegaanka Ceelasha Biyaha ee dowladda magaalada Muqdisho waxa korrow halkan warbaahinta qaran ku hadlay Sheekh Maxamuud Cabdulla Cariif wuxuu ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ay ka joogan oo ka codsaday in laga soo qayb qaato dhismaha ceel biyood cusub oo halkan la rabo in laga dhiso sheekha waxa uu sheegay in uu waqfay dhulkii laga taagi lahaa ceelka laga dhis lahaa ceelka masjidku waxa uu baahan yahay biyo rabaa biyaha soo maaragtay dadkii muslimiinta ay ku weeysa qaataan biyo kaafiya marka ma jiraan oo sidii la rabaa waxa marka aan jeclaanay aan isku dayaynaa anagoo maaragtay u wada dhan oo qof hadda masjidka laga xigana aysan jirin waa guri Ilaahay waa marka baytullah yaa la yiraahdaa baytu fulaan iyo waxaas lama dhaho guriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaad gashato adiga ayaa maartay qiyaam helaya warka inaa idin ku badiyo ma doonaayo waxaan ogahay dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta rag iyo haweenba inay aad iyo aad u jecel yihiin khayrka annagu waxaan ka raadinaynaa man dalla ala khayrin ka faa'ilihi rasuulka kaleey salaam qofkii dadka khayrtu si asaguna qofkii falay ajirkiisa kale u helaya kiisuna u dheeraad marka dadkuna alxamdulillah ahlu khayr waaye dad badana waxay rabaan meel ay waxa ay haystaan ay gashadaan oo Ilaahay ugu dhawaadaan laakiin meesha ay ka maqan tahay marka waxa aad iyo aad u baahin loo qabaa oo masjidku u qabaa inuu helo ceel oo maaragtay u qaasa oo maaragtay alxamdulillah biyo oo ka helo meeshan hadda aan joogno oo soonahan afgooye xamar u dhaxeeya waa meel la yiraahdo Carraweyna la dhahaa meeshan ceelkeedu waa fog yahay aad iyo aad u dhib badan yahay carrada kala la mid maahan hadduu carrada kala la mid yahay oo ceelasha gaagaaban marraanba iska qoda lahayn marka meeshan riig mooyaane wax kale oo biyo ka soo saari kara ma leh riigaas iyo qarashkiisa iyo maaragtay ceelka waxa uu baahan yahay dadku waa yaqaaniine waxa soo dhan waxay u baahan yihiin markaas qarash badan waa la qiimeeyay arintaas waxa soo dhan waxa ku filan waxay noqdeen $70,000 ay noqdeen $70,000 wax boqol kun ka yar weeye qof muslim ah alxamdulillah ilaahi agtiisa inuu wax geysan raba maalka runtaana waxa weeye nabigeenu waxa uu dhahay alayhi salaam maaluka ma qadamta u dhahay wa maalu waarisika ma akharta maalkaaga runta waxaad hormarsatay oo ilaahi agtiisa geysata waay maalka runta kaas waay wixii adiga bacdigaa awlaadaada iyo warasada wax u reebto waa khayr badan tahay laakiin maalul waaris hadhow wax lagu sameey doona ma taqaanid hadda inta adduunyada joogno inaan waxeena hormarsatno ayaa noo khayr badan ilaahay yaa mahad subhanahu wa ta'ala eelkaas marka hadda qarashkaas waa bilaaban yahay asaga laftirkiisu oo dad badan oo waxyabo hayna waa jiraan annaguna insha Allah ta'ala wixii kale ku dareynaa ilaahay idankiisa marka waxaan reebnaa ilaahay waxa uu dhahay fasabiqul khayraadka u tartama wax khayra waaye sadaqada jaariyadana waxa waaye ceelku koobowba ka yahaba masjidka hadda waa kan
الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أجرها كصي أنت صومالي وحقدر ستي إن شاء الله تعالى عيل كانه دول كيسة أنجا أيا ديبين ودول كان بقى أنجا وقفنا وحنا إلهي إذن كيسة عيل كدول كيسة نقول الجذا يا ماهن إن شاء الله تعالى وحاس الله نهاي ضدك محسنين تا ويلالي قبل له مشايخ له مارتي أضيال له ركز وحكس له هذا لبد الجنسية أن هي صومالي ذا وحن كعد سنة أيجنا أن كتر ترسيهنا إن ماشان أي كبنا أنت هي وحلقة فايدي سكره وعيل كاسواي مركينا وحرور صنه أو أن مارتي قف جوني أنا هذا الجو خصيص مايو وحدي اللي يسوق ومضي صوتك الحمد لله وتعاونوا على البر والتقوى والإلهي برجع واسم جامع لكل خير يسوق هالمية إلهي تقويدي يسوق هالمية وحوي أعماشه تعاون أيو إلهي يان كالم أباهنين تعاون أيا وحكوي ماذا مركا وحان لنا ضدك وناسنا خيرك جعل أو ربا إنا إمارة يا وحود ديبتان إلهي إذن كيسا عيل كاسا لقودا يا أو سمينا يا مركا وحان ربنا إن حل أن إسسارنو عيل كمسجد كانوا سمينو الضوء رمضان سيد هذا مسجد كبا ضوء أركتين أيا أصغنا الحمد لله وحان إيمان وحي كلنا سوشيال ميديا هناك الحرير أيان إن شاء الله تعالى سنتي عدك قاضي سنة مجرتو كوبا حيسا وعوايا أننا جاب كينا إن وحي أوبضان أم بأود أو كقاضنا أننا ربنا إن شاء الله تعالى أنت أسمرك وحن شيئنا ذاتك ولا لها الصوماليات dhibaatada iyo wax walba waxa looga baxaa sadaqada qofkii jiran waa daawoobayaa rasuulku daawo marlaakum bisadaqati oo dadkiina jiran sadaqada ku daaweeya dad badan baa cilal iska qabadada awlaad la'aan haysa dada kurba haysa dada waalidkoodi maartay raba inay wax u waqfaan sadaqa jaariya waa dhamaanaynin dadkaas jira marka dadkaasi dariiqi ay wax ku baxsalahaayeen ayaa hadda noo furan marka hore waxaan isdheeyna masjidka toosiya masjidka alxamdulillah wax u dhimano ma jirto waxaan ku dareynaa hadalka oo raacsiinaya dadku waxa weeye lacag la soo diraa oo hadda aaladana wax lagu sameeyaa telefoonka numberkayga hadda maartay anigu kaliya aan leeyahay inkastoo badana Soomaalidu ay taqaano haddana waxa waaye telefoonkan laga isticmaalo halkan 3 shanaad 8 toddobaad waaye 3 shanaad 8 toddobaad كاسا مارتيا خدنا والليهاي أو مارتيا وصابك كل مال والبالغ لسوء حرير كرا عادنا والو لسوء حرير كرا تلفن كاسا مارتيا نلقى سوء حرير يا إن شاء الله تعالى ومهسنتي